munaasabaddan oo ahayd mid lagu taageeraya habraaca doorashooyinka ay soo saareen guddiga farsamada maamul dhisida Galmudug ayaa waxa soo qaban qaabiyay bulshada ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb. Munaasabadda ayaa waxa ka soo qayb galay nabadoono ugaasiyo siyaasiyiin bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horeyntii munaasabadda waxa ka hadlay dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadda. Guddiga farsamada ee maamul samaynta Galmudug koleyba caawa markay arkaan shaqadooda waxaan maleynayaa inay si labalaabi doonaan sababtoo ah waxa Dhuusamareeb waxa ka muuqato magaalada madaxda Galmudug dawlad jaceylka iyo in ay u heeloon yihiin in dawlad la dhiso Galmudug dawlad loo dhiso horay loo socdo wayna koleyba diyaar u wada nahay u maleynayaa caawa xafladan waxay ku saabsan tahay taageerida guddiga farsamada maamul samaynta Galmudug waana runaantii dadkii aad kugu farxay waa kamid ah markii la yiri habraaca oo waliba waday marayeen inta istaageen cabaar muraayada raadsaday ku fiiriyaan ayagoon muraayad xiran jirinin sabab kale lama ahane waxa waaye shaqada soo socotay mar koobaad mar saddexaad mid afraad waxaan ku faraxsanahay guddigeena farsamada dhisida maamulkan ka shaqeynaya shaqada ay wadaan aadna waa u dhiirigelinaynaa waana dareemaynaa dawladdu aad bay u soo dulqaadatay wax badan bay u soo samirtay shacabku wax badan bay ogyihiin ayaguna hadaan waxyaabaha yararka ognahay waxaanu la yaabaneen dawladda intaas dheer intay sugaysay baan waxaan lahayn dawladdu waana daalisay maxay inta ka sugaysaa waxaan ma naga siidayso mar madaxa u siidayso. Dhanka kale waxa munaasabadda iyaguna ka hadlay nabadoonadii iyo ugaasyadii ka soo qayb galay kuwaasi oo muujiyay inay ku faraxsan yihiin in la helo Galmudug tayeesan oo midaysan. muddada aan joognay ama aan saxaafadda ka hadlayna ama shirarka ka qayb galayna waa dareemi kartiin inta bilood ay tahay dib u dhac kale nooma noqdo looma noqdo dadku way daalan yihiin gobolkuna waa daalan yahay waxaan u baahanahay maamul waxaan u baahanahay gobolka inaan cagihiis ku istaajino cid kale u maqan ma jirto ilaa aan ilaahay ahayn annaga mas'uuliyaddu saaranta waxaan leenahay marka waxaan diyaar garowgeennii sida odayaasha guddoomiyaha ugu baaqay inay dhammaantood soo wada galaan ciyaashaas si aan hawshan hore ugu galno. xabaan idiin sheegayaa ninbaa waxaa la yidhi xabsi ku jiray wuxuu wax badan xabsi ku jira maalintii dambe la soo daayay reerkiisii buu nabad ugu yimi wuxuu yiri wax dhan baa tujuumnaayo jinna xariga ugu jiray balaal caawa jimicsado marka wax dhan baa reer Galmudug oo dawladii meelay xageey soo maraysa indhaha saa u hayseene bal horta caawa jimicsada. waxaan ka taageerayaa caawa guddiga go'aanka uu gaaray guddiga farsamada Galmudug waxaan leenahay soo dhawaada waqti dheer ayaanu meeshaan joognay haddaad caawa go'aan soo saarteen annaguna diyaaraanna aan taageerno go'aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka Galmudug waxaan leeyahay waxaa la yidhi raticaal ku raagay saarin ma diido waxaan leenahay waan raagnay waan daahnay maantana waxaan caawa joognaa farxadtii ugu wanaagsaneed inta ay soo dhaweynayaan maxaan ku radaa guddiga maxaan ku radaa soo dhaweynta guddiga maartay farsamada maartay xulida ama habraaca runtii aad baan ugu faraxsannahay maadaama aan sugaynay wax badan waxaan rajaynayaa inay noogu dhammaato guul iyo maxaan ku radaa khayr. ugu dambeyntii waxa munaasabadda soo xiray macallin Nuur Cilmi Cabdulle gudoomiyaha caasimadda Galmudug. waxaan leenahay bulshada caasimadda bahda reer Galmudug oo halkan fadhisa dhammaantood inta maqana matalaya waxay garab taagan yihiin oo gacan siinayaan go'aamada ka soo baxay guddiga maamul samaynta Galmudug. maamulka caasimaddu waa annaga siyaasad kale waxba nagama quseeyaan waxaan diyaar u nahay inaan gogol u noqonno bahda Galmudug soo dhaweyna cid kasta oo imaanaysa heer qaran musharax midkii ah nabadoonnada iyo dhaqanka loo yeeray si ay u dhisaan Galmudug kulligiin waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada. khiyaartii ugu horeeyay sidii u sheegeen waxaan leenahay Galmudug waxaan u rajaynaynaa inay ka dhisanto
dawlad garab istaagta midda qaranka. Fartuun Maxamuud Axmed, Fartuun Filsan, Somali Cable TV, Dhuuso Mareeb.